السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tagtadii tixraac oo aan idinku hayo qormo xiiso badan oo ku saabsan taariikhdii iyo dhaqankii Soomaalidii hore ee bilowgii qarnigii 20aad. waxaan qormadan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah haldoorkii iyo horyaalkii Soomaalida ee xilligaa noolaa waa eebaha u naxariistay abwaankii weynaa ee Qamaan Bulxan Yuusuf. Qamaan wuxuu noolaa dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa horaantii qarnigii tagay. waxay isku gada ahaayeen eebaha u wada naxariistay hogaamiyihii daraawiishta halgamaaseed Maxamed Cabdulla Xasan. Qamaan wuxuu ka mid ahaa hormuudkii xoolo dhaqatada galbeedka Soomaalida gaar ahaan labada gobol ee Qoraxay iyo Doolo. la ahaanshaha Qamaan Bulxan wuxuu ka mid yahay xulka ragga lagu dhaato isla markaana raadka muuqda ku leh taariikhda Soomaalida hase ahaatee aan ilaa hadda taariikhdooda la soo bandhigin ama aan siday ahayd loo xusin. haddii ayna hadda wax daba qabtay helinna waxay aana u tahay in raadkoodaba la waayo marka waayeelka wax ka sii hayaa saaxada banneeyo. sidaa awgeed wax badan lagama sheegin taariikhda Qamaan Bulxan. waa aragtidayda haddii laga tegi waayo qodobka qura ee aan in badan ku maqalay wuxuu yahay marka laga warramayo silsiladii gabayada ee ay inta badan Soomaalidu u taqaano guba balse deegaanka uu ka soo jeedo ay waayeelku magac ka duwan u sheegaan. silsiladana wuxuu ka ahaa xidigii koowaad ee abwaanadii ka qayb qaatay waana lagu khasbanaa in Qamaan lagu xuso kolba haddii laga maarmi waayay in silsilada la wariyo. si kastaba ha ahaatee eega uma socdo inaan ka warramo taariikhdii Qamaan Bulxan. haddiiba aan ka warrami lahaana wax badan kama hayo taariikhda Qamaan Bulxan laakiin waxaan jeclaystay inaan asxaabtayda qiimaha badan la wadaago sheeko kooban oo ka hadlaysa qayb yar oo ka mid ah taariikh nololeedkii Qamaan Bulxan. haddaba haddii aan ku soo dhawaado halka ay dulucda qormadani daaran tahay waa guurkii iyo jacaylkii dhex maray Qamaan Bulxan iyo gabadhii rag isku arkay ee Barni Sheekh Cabdulla Aw Cali. sida aan ku hayno taariikh dhaqameedka Soomaalida Qamaan Bulxan wuxuu ahaa nin karmeed gabyaa caan ah oo lagu wada halqabsado aftaan hadal aqoon ah abwaan murti iyo xigmadba loo og yahay oo geyga Soomaalida laga wada yaqaano. wuxuu ahaa hogaamiye lagu hirto oo hal abuur dhaqan iyo mid siyaasadeedba leh oo maalinta ay murugto talada lagula soo noqdo. wuxuu ahaa xilkas naxariis badan oo ku dadaala inuu kab iyo karinba u xidho dadkiisa inta uu awoodo. wuxuu ahaa in dheergarad ka fikira waxa iman doona isla markaana alifa isku duubni iyo wada jir lagaga gudbo qodxaha iyo qoofalada daadsan tubaha lagu hayaamayo ee la filayo in nimciyo nusqaanba lagala kulmi doono. sidoo kale wuxuu ahaa gabyaa akhlaaq iyo dhowrsanaan ku caanbaxay oo aan gabagiisa cidna ku gadaafeynin colaadna ugu gogol xaadhin. xataa haddii isaga lagu gafo ama gabay xun loo soo tiriyo aan ka ficil qaadanin garaad xumayaasha balse waano iyo hogo tusaalayn ugu jawaaba. afkiisa iyo gabaygiisuba way ka caaganaayeen cayda aad buu u yaryahay abwaan noociisa ah Soomaalida inta aan aragnay. dhanka kale Barni Sheekh Cabdulle waxay ahayd gabadh qurux eebbe hibo u siiyey oo nin arkaaba qalbi raaco dhaayihiisuna ay diidaan inay ka jeedsadaan isla markaana ka dhalatay qoys wanaagsan oo dun loo xisho leh. gabadha ay labada astaamood isu raacaan raggii hore ee Soomaalidu way ku hardami jireen hanashadeeda. Barni waxay ku noolayd ama uu qoyskoodu ku dhaqnaa cirifka galbeed ee hawdka deegaanada u dhaxeeya Qabri Bayax iyo Hargeysa. intaa kadib si aan isula jaan qaadno isulana fahanno siday ku kulmeen Qamaan iyo Barni oo ku kala noolaa laba deegaan oo kala dadban oo aan badanaa ceel iyo caws wadaagtoona ahayn inay sanad abaari dhacday hayaan iyo kaynaan isku soo gaadhaan mooyee waxaa lagama maarmaan ah inaan guud mar kooban ku samayno siday xaaladdu xilligaa ahayd iyo arrimihii sabab u noqday
kulanka qamaan iyo barni sidaan horey u soo xusnay qamaan wuxuu noolaa guyaalkii ay daraawiish geylanka kula jirtay gumaystayaashii reer yurub gumaystayaashuna ay baratanka ugu jireen hanashada geeska afrika iyo mid waliba inuu ka helo saami badan sidaa darteed xilligaa guud ahaan haldoorkii soomaalidu wuxuu ku fikiray inuu abuuro qorshe siyaasadeed oo ku aadan xaaladda cusub ee la galay oo sidii hore si ka weyn la isu xil saaro nin walbaana wuxuu u dhaqaaqay dhankay la ahaatay inuu xalku ka jiro haddaba iyadoo taa laga duulayo qamaan wuxuu ka mid ahaa in dheergaradkii xalka biday in nidaamkii maamul ee xilligaa u dhisnaa dadka la tayageliyo oo awood ciidan iyo urursanaan lagu kordhiyo si la isaga dhiciyo ama ugu yaraan la isaga leeleeliyo dowladaha geyiga ku soo kordhay sidaa awgeed qamaan wuxuu dhisay ciidan dhallinyaro ah oo xoog iyo xiribba isbiday oo ka kooban reer tolkii gaar ahaan qoyskiisa si uu ula tartamo deegaanada kale ciidankaas oo uu u bixiyey dhaandhaamo eraygaana kolley ma aha aada u fahmin sababta uu abwaanku u qaatay iyo ujeeddada uu ka lahaa balse waxay iigu muuqataa in ay ka ahayd carraabin ama tirtirsiimo kolba midkaad u taqaano dhanka kale waxaa dhacday rag door ah oo ka soo jeeda deegaan ay ehel iyo ood wadaagba yihiin inay u kaceen hargeysa oo ay ugu tageen aarshar oo barasaab ka ahaa gobolladii la odhan jiray waqooyiga soomaaliya haatanna somalilan raggaasi damaanshaad ammaan iyo geeraarba way u soo sameeyeen aarshar sida la sheegayna xarbi ismaaciil oo ahaa gabyaankii caanka ahaa oo markaa la socday raggaa ayaa goobtaa ka tiriyey geeraar ay ereyadiisa ka mid ahaayeen aarshar dood iyo deeq iyo dad baad xukuntaa dallacaad uma baahnid sidaa darteed raggaa oo 20 kor u dhaafayey aarshar uu abaal mariyey dhammaantood wuxuu ka simay ninkiiba go' bafto abusarmaan ah macaws cad oo khayli ah iyo shaadh cagaar ah kuwaas oo xilligaa helitaankoodu aad u adkaa haddaba markay raggaasi soo laabteen ayay qamaan iyo ciidankiisii arrintaa ka war heleen kadibna waxay istuseen in iyana halkaa qurus ka jiro islamarkaana ay tahay inay doontaan ugu dambayntiina waxaa dhinaca hargeysa u ambabaxay ciidan hubkoodii wata oo uu hogaaminayo qamaan bulxan waxay cagta sii maalaanba waxay isku shubeen hargeysa balse uguma ayna tegin aarshar oo waxaa loo sheegay inuu berbere jiro inkasta oo ay socod dheer soo galeen haddana ma ayna hakanin ee waxay cagta saareen waddadii berbera habeenkii dambe ayay bulshadii reer berbera dhaanto ka tumeen aarshar oo ay soomaalidu u taqaaneen caarsha dheere wuxuu ahaa sida la sheegay nin deeqsi ah qamaan iyo raggiisii intuu aad u soo dhoweeyey ayuu raggii hore bare u dheereeyey dhar iyo lacagba wuu siiyey qamaan iyo ciidankiisii iyagoo arradla oo libin ku geeraaraya ayay soo noqdeen